barnaamijka muwaadinka iyo miisaaniyadda 2021 barnaamijkan waxa aanu dadweynaha kula wadaagaynaa xog ku saabsan miisaaniyadda dawladda 2021 sida xaddiga lacageed ee ku talagalka odoroska miisaaniyadda meelaha mudnaanaha ay siinayso ilaha dakhliga dawladdu ka iman doono xaddiga cashuuraha jamhuuriyadda Somaliland annaga oo barbar dhigi doona kuwa ay qaadaan wadamada bariga Afrika. Somaliland waa dal soo koraya kaas oo ka soo kabanaya burburkii laxaadka lahaa ee laga dhaxlay dagaaladii dib u xoreynta dalka iyada oo wax kasta laga soo bilaabay meel hoose tan iyo sanadkii 1991 nabadgelyada iyo xasiloonida Ilaahay inagu galladay awgeed waxa aynu horumar ka sameynay dhinac kasta. Hay'adaha dawladda ee kala duwan ayaa maalinba maalinta xigta xoogaysanayay. Ganacsiga gaarka ah ayaa muddada 30 sano ah horumar la xaalin sameeyay isagoo oo ka faa'iideysanaya xasiloonida iyo siyaasadda suuqa xorta ah ee aynu qaadanay. miisaaniyadda dawladda 2021 dawladdu waxay ku tala jirtaa inay kharash gareyso 2021 2.1 trilyan sanadka 2021 oo aanay ku jirin deeqaha caalamiga ah iyo miisaaniyadaha dawladaha hoose iyo hay'adaha madaxa bannaan taas oo u dhiganta kororsiino dhan 55.5 bilyan oo la mid ah 2.7 boqolkiiba marka la barbar dhigo miisaaniyaddii sanadkii hore 2020 marka lagu daro deeqaha caalamiga ah iyo miisaaniyadda dawladaha hoose wadarta guud ee miisaaniyadda dawladdu waxay noqonaysaa 8.8 trilyan iyadoo deeqaha dibaduhu ka noqonayaan wadarta guud ee miisaaniyadda 5.7 boqolkiiba. Dawladdu waxa ay miisaaniyadda 2021 ugu kala qoondeysay qaybaha kala duwan sida uu mudnaanta u kala siinayo qorshaha horumarinta qaranka ee NNDP2. Waa maxay mudnaanaha kharash ee miisaaniyadda 2021? kow ammaanka ama nabadgelyada in loo iibiyo 42 baabuur ciidanka bilayska in la qoro 1500 oo isugu jira bilays iyo military in xarumo dhaqan celineed laga dhiso Mijacaseeye iyo Boorama. laba caafimaad 2.4 bilyan oo lagu soo iibinayo qalab caafimaad 5 bilyan oo lagu daboolayo hawlaha la xiriira cudurka safmarka ah ee COVID-19 4.9 bilyan oo lagu dhameystirayo dhismaha 3 xarun caafimaad 2 xarumood oo ah hooyada iyo dhallaanka oo laga dhisi doono Sanaag iyo Awdal 8 bilyan oo lagu baritaari doono caafimaadinta dhibirka ama dhimir waxa kale oo dawladdu la wareegi doontaa gabi ahaanba hawlaha caafimaad ee sanduuqa horumarinta Somaliland ka waday Ceerigaabo iyo Laascaanood 3 waxbarashada dhismaha 24 dugsi hoose dhexe oo dalka oo dhan ah iyo qorinta 300 oo barayaal ah ama macallimiin kabista mushaharka macallimiinta dugsiga farsamada gacanta ee Berbera ballaarinta jaamacadda Gabiley iyo 4 rugo buugaageed oo dalka oo dhan ah waxa dawladdu la wareegaysaa mas'uuliyadda kharashka waxbarashada dayaxa Ceerigaabo iyo Laascaanood oo uu sanduuqa horumarinta Somaliland gacanta ku hayay 5 biyaha iyo fayadhowr 12 bilyan oo lagu qodayo ama lagu dhisayo ceelal cusub waxa qayb ka ah dhameystirka mashaariic la hakiyay 2021 iibinta qalabka saaminta ee shaybaarka la xiriira 6 deegaanka waxa ay dawladdu maalgelin doontaa mashaariicda muddada dheer soconaya sida daryeelka duurjoogta sidaa daraadeed waxa lagu talagalay ama lagu tala jiraa kordhinta seerayaal ama ceshiimooyin fidinta seerayaasha bancawl iyo cashuuraha waxa lagu kordhin doonaa 4 bilyan sanduuqa aafooyinka dabiiciga ah 7 kaabayaasha iibinta qalabka GPRS oo lagu xiriyo gaadiidka dawladda si loola socdo dhaqdhaqaaqooda dhismaha hal bridge mashruuc sahamin ah oo lagu yegleelayo sumadaha boosaha iyo ciwaanada eebida 4 dhisme oo ay kala leeyihiin wasaaradda horumarinta maaliyadda beeraha hay'adda shaqaalaha dawladda hay'adda ka hortagga aafooyinka qaranka iyo kuwa kale 8 wax soo saarka dhismaha dekedda mayd soo iibinta shaybaarka xoolaha sii wadida maalgelinta mashaariicda beeraha ee beer wajaale iyo oodweyne oo lagu beerayo aruurka arabikhada sisinta iyo khudaarta 3 bilyan oo lagu kordhinayo mashruuca fidinta beeraha ee aburiin 1 bilyan oo lagu kordhinayo ilaalinta nabaadka dhirta meelaha mudnaanta gaarka ah miisaaniyadda dawladdu ay siinayso waxa kamid ah horumarinta dhalinyarada iyo shaqo abuurka waxa ay dawladdu 2 bilyan ku daraysaa sanduuqa horumarinta waxa la cusboonaysiin doonaa garoonka ciyaaraha Hargeysa Stadium abuurida liigag ciyaareed oo gobolada ah waxa barnaamijka shaqo qaran loo qaadan doonaa 500 oo dhalinyaro ah oo jaamacadaha ka soo baxay waxa sidoo kale si rasmi ah ama joogto ah loo shaqaaleysiin doonaa 1610 oo ah shaqaalihii ku meel gaarka ahaa maalgelinta barnaamijyada socda ee aaga warshadaha u gaarka ah iyo hawsha qorsheynta magaalooyinka waxay dawladdu ama siyaasadda miisaaniyaddu ay si gaar ah mudnaanta u siinaysaa sanadkan aqoonsi raadin doorashooyinka oo lagu kharash gareyn doono 28 bilyan oo sanadle ah doorashooyinka iyo in la daboolo kharashka doorashooyinka dawladaha hoose iyo baarlamaanka ee sanadkan meelaha ay taneynaysa siyaasaddu waxa kamid ah qaadka oo lacag loo saari doono daryeelka caafimaadinta dhimirka waxa ay dawladdu aad u taneynaysaa meelmarinta siyaasadda caafimaadka dhimirka ee heer qaran si taasi looga dhabeeyo waxa la raacin doonaa kiilo kasta oo qaad oo Somaliland soo gala 200 oo shilin laga bilaabo 1 January 2021 lacagtani
waxaa gooni loogu gaar yeelayaa sanduuqa ay wasaaradda horumarinta caafimaadku ku daryeelayso caafimaadka dhibirka. wax yar oo la raaciyo qiimaha qaadka ayaa waxa uu taageero aan la soo koobi karin u noqon doonaa daryeelka muwaadiniinta dhibirka u buka. 3 biloodba waxa wasaaradda horumarinta maaliyaddu ay faafin doontaa xaddiga dakhli ee laga helay cashuurtan iyo inta la geliyay caafimaadinta daryeelka bugtada dhibirka. cashuuraha oo laga dhigo kuwo si sahlan loo bixin karo. wasaaradda horumarinta maaliyadda waxaa ka go'an in cashuur bixiyaha loo fududeeyo hanaanka bixinta cashuuraha. cashuur bixiyaha diiwaan gashan ee haysta lambarka aqoonsiga ama sumada aqoonsiga cashuur bixiyaha waxa uu heli doonaa adeeg casri oo ka wanaagsan adeegyadii hore loogu fidin jiray. ganacsatada waxaa lagu xiri doonaa sumada aqoonsiga ganacsiga si ay u helaan warqadda cashuur la'aanta, si ay uga qayb qaataan qandaraasyada dowladda, si ay agab ama adeeg uga iibiyaan dowladda, si ay u cusboonaysiistaan ama u qaataan liisan ganacsi, si ay wax u dhoofiyaan ama u soo geliyaan Somaliland badeecad. cashuuraha ma jiraan wax cashuura ah oo la kordhiyay sanadkan, balse waxaa la salbalaariyay kuwii hore uun, taas oo macnaheedu yahay in si siman dadka loo gaarsiiyo oo xoogga la saaro sidii loo qaadi lahaa cashuuraha laga yaabo inay ku baaqdaan dad badan. su-aasha isweydiinta lahay waxay tahay maxaynu u bixinaa cashuurta, maxayse tahay faa'iidada ku jirta? Somaliland waxay rabtaa inay gaadho isku filaansho, kuma tiirsanaan karra deeqo aynu ka helo dibadda. xataa haddii aynu lacag soo daynsano waxaa loo baahan yahay lacag dib loogu bixiyo. ogow cashuur bixiya cashuur yar oo aad bixisa macnaheedu waa adeeg yar oo ay dowladdu awood u yeelanto fulinteeda. cashuur bixintu waa jidka ugu habboon ee muwaadinku kaga qayb qaadan karo gacansiinta waddankiisa. haddaba halkay ku baxdaa cashuurta uu bixiyo cashuur bixiyuhu? cashuurtu waxaa lagu qabtaa ama lagu dabaraa adeegyada muwaadinku uga baahan yahay dowladdiisa sida wadooyinka, nabadgelyada, biyaha iyo wixii la mid ah. ummadda ilbaxa ah ee hormuudka ka ah horumarka qarankoodu kama warwareegaan bixinta cashuuraha ku waajibay. miisaaniyadda sanadlaha ah ee dowladdu waxay ku salaysan tahay hadba inta ay la eg tahay cashuurta la rajaynaya inay soo xaroodo. xaddiga cashuuraha jamhuuriyadda Somaliland waa kuwo aad uga hooseeya marka loo eego kuwa ay qaadaan wadamada bariga Afrika. sida kaaga muuqata shaxdan, dhammaan cashuuraha ay qaado Somaliland waxay ka hooseeyaan wadamada Kenya, Ethiopia, Tanzania, Uganda, Rwanda, Burundi iyo Djibouti.